بسم الله الرحمن الرحيم كل وعنا ونكسد داوديال halkani waa telefishinka dalsan muqdisho waxaan ka soo gudbinayaa barnaamijka faaqidada ciyaaraha waa qamiis taariikhdu waxay ku beegan tahay 5 bisha June sanadka 2025 warbixinada daqiiqada soo aadan barnaamijka aan ku soo qaadan doono waxaa qayb ka ah kooxda kubadda cagta Liverpool oo xiiseynaysa horyaalka kooxda AC Milan Rafael Leo Manchester City oo ku fashilantay doonistii ay doonaysay laacibka kooxda kubadda cagta Lyon ee Ryan Cherki barnaamijka ayaan saaxiibayaal ku soo qaadan doonaa sidoo kale waxaan soo gudbin doonaa horyaalka xulka Spain iyo kooxda Atletico Bilbao Nico Williams waxa uu sheegay in Lamine Yamal uu qalmo jaysada caanka ah ee Ballon d'Or iyo barnaamijka ayaan ku soo qaadan doonaa si lamid ah waxaan soo gudbin doonaa naadiga Chelsea oo si rasmi ah u soo bandhigtay horyaalkeeda Liam Delap oo kala soo wareegtay kooxda kubadda cagta Ipswich Town lambarku xiran doono oo shaaca ka qaatay iyo inta sano ay ciyaartoydan u saxiixay ee barnaamijka saaxiibayaal ku soo qaadan doonaa sidoo kale waxaan soo gudbin doonaa xulka qaranka Portugiiska oo guul weyn ka gaaray xulka qaranka Germany wareegga semifinalka tartanka xiisaha badan ee UEFA Nations League sidoo kale waxaan soo qaadan doonaa Ronaldo oo taariikh sameeyay kama marna laacibka da'da yar ee xulka qaranka Portugal ninka lagu magacaabo Francisco Conceição oo taageerayaasha xulka qaranka Portugal dib u xasuusiyay aabihiis 25 sano ka hor gool uu ka dhaliyay xulka qaranka Germany guud ahaan waxa ay ka diiwaan galiyay kulankii xal dhaxmaray Jarmalka iyo Portugal qaybna ka ah semifinalka tartanka UEFA Nations League ayaa barnaamijkan saaxiibayaal ku soo qaadan doonaa sidoo kale waxaan soo gudbin doonaa kulanka kale ee caawa dhaxmari doona Spain iyo Faransiiska oo isku arkaya semifinalka tartanka UEFA Nations League yaa caawa u gudbi doona finalka Ousmane Dembele iyo Lamine Yamal oo si weyn isha lagu hayn doono maadaama labadan xidig ay ku dagaalamayaan jaysada caanka ah ee Ballon d'Or wax walba kulankan ku saabsan ayaa barnaamijka saaxiibayaal ku soo qaadan doona kama badna warkiisada ay ka soo qorayaan suuqka ciyaartoyda aan ku bilaabo barnaamijka faaqidada ciyaaraha Dalsan TV kooxda kubadda cagta Chelsea ayaa waxa lagu soo waramayaa in ay xiiseynayso horyaalka kooxda AC Milan Rafael Leo kooxda Liverpool ayraade ayaa waxay aad u xiiseynaysaa laacibka kooxda kubadda cagta AC Milan weerarka ciyaara iyo xulka Portugal ee Rafael Leo Liverpool sidaan la socono waxay wada hadal fiican u socdaan kooxda kubadda cagta Bayer Leverkusen taa uu ku aadan xiisaha ay u qabto horyaalka Jarmalka ee Florian Wirtz Liverpool iyo Bayer Leverkusen ayaana meel fiican ay wax u marayaan marka loo eego heshiiska laacibkani iyadoo Bayer Leverkusen laacibkani ku doonayso 150 milyan oo euro halka Liverpool ay doonayso 170 milyan iyo ciyaartoyna isugu darto kooxda kubadda cagta Bayer Leverkusen isla markaana ay ka soo qaataan Florian Wirtz sababta keentay in Liverpool ay u wareegto laacibka Rafael Leo waxay tahay inay ku fashilanto gabi ahaanba xiisaha ay u qabto laacibka Florian Wirtz su'aashu waa maya sababta Liverpool ay u xiiseynayso Rafael Leo waa in aysan hubin laacibkeeda Luis Diaz Liverpool ayaa waxa ay maanta ishaacisaba in Barcelona ay u sheegtay in laacibkan uusan iib ka ahayn isla markaana xiliyaareedka soo socda uu baaq ku siyaanayo garoonka Anfield ay ku ciyaarto Liverpool balse cabsida weyn naadiga Liverpool waxay ka qabtaa kooxda kubadda cagta ee Al Hilal ayraade Al Ahli Al Nassr ay ka ciyaarta gudaha wadanka Saudi Pro League taas oo iyadu xiiso weyn u qabta laacibka Luis Diaz haddii qiimo macquul ah oo laacibkan qanciya u soo bandhigtana waxa laga yaabaa Liverpool inay weyso laacibkeeda Luis Diaz sida daraateed ay Liverpool waxay u xiiseynaysaa laacibka Rafael Leo Fabrizio Romano wariyaha caanka oo arrimaha wax lagu weydiin waxa uu sheegay inaysan warkaasi in war banaanka u soo baxay oo inta badan la ogyahay aysan ahayn xiisaha laacibka Rafael Leo ay u qabto kooxda kubadda cagta ee Liverpool balse ay yihiin wax iska xan ah isla markaana Rafael Leo waqti xaadirkan uu qayb ka yahay kooxda kubadda cagta AC Milan Liverpool ayaana horay waxay u soo wareegtay laacibiinta Frimpong ay ka soo qaadato kooxda kubadda cagta ee lagu magacaabo Bayer Leverkusen waxaana ay sidoo kale ay doonayaan haatana in Florian Wirtz ay ku soo darsato isla markaana Luis Diaz bedelkiisa ay ka dhigato Rafael Leo waa haddii uu kooxda uu ka tago dhinaca kale kooxda kubadda cagta Manchester City waxaa laga soo diiday dalabkii koowaad oo ay ka gudbisay laacibka Lyon ee lagu magacaabo Ryan Cherki 23 milyan ayay hordhigtay kooxda Lyon balse gabi ahaanba Manchester City waa laga soo diiday waxaana laga doonayaa ugu yaraan inay qiimaha ay gaarsiiso 30 ilaa 40 milyan haddii ay doonayso laacibka la magacaabo Ryan Cherki oo weerarka ciyaara xulka Faransiiska iyo sidoo kale kooxda kubadda cagta ee Olympique Lyon ee ka ciyaarta gudaha wadanka Faransiiska dhinaca kale saaxiibayaal laacibka Spain u ciyaara ee Nico Williams waxa uu isaguna uu ka hadlay cid ku guuleysanaysa jaysada caanka ee Ballon d'Or waxaana uu qabaa in saaxiibkiisa
isku dalka ay yihiin ee Lamine Yamal uu yahay midka ugu qalma jaysadan inuu qaato waxaana aad u amaanay Lamine Yamal isagoo sheegay haddii uu Lamine Yamal ugu guuleysan waayay jaysadani inay tahay musuq iyo xaasidnimo diineed Lamine Yamal ayuuna qabaa ninka Williams inuu ku guuleysan karo jaysada caanka ah ee Ballon d'Or. dhanka kale kooxda Chelsea waxay si rasmi ah u soo bandhigtay laacibka Liam Delap oo ay kula soo wareegtay naadiga Ipswich Town hadduu lacageed gaaraya 30 milyan ayay laacibkan saaxiibka ka soo bixisay lambarka 9 ayuu xirtay heshiis 5 sanadood ah ayuu u saxiixay kooxda kubadda cagta ee Chelsea laacibka lagu magacaabo Liam Delap. ugu dambeyntiina saaxiibayaal tababarihii kooxda kubadda cagta Inter Milan Simeone Inzaghi waxa uu si rasmi ah ugu biiray kooxda kubadda cagta Al Hilal oo uu saxiixay 2 heshiis ama 2 sano oo heshiis ah oo ku joogi doono kooxda kubadda cagta Al Hilal. ugu dambeyntii halkaas ayuu qabtay tababar Inzaghi isagoo ay ismac salaameeyeen kooxda kubadda cagta Inter Milan. gudaana daawadayaal inta ay ku soo gudbinayaan barnaamijka